qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah Sweden oo soo saartay sharciyo saameynaya soo galootiga ay Soomaalidu ka mid tahay. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dowladda waddanka Sweden ayaa dhawaan soo saartay sharciyo adag oo la xiriira arrimaha bulshada oo si gaar ah u saameynaya dadyoga soo galootiga ee dalkaasi qaxootiga ku jooga. Sharciyadan oo dhaqan galay bilowgii bishan July ayay ka mid yihiin gudniinka gabdhaha, guurka ay qoysaska caruurtooda u dooraan lamaanaha isguursanaya ama gabdhaha iyo wiilasha la isku daro iyagoo aan isdooran. waxaa sidoo kale la mamnuucay in gabdhaha loo diido qofka iyagu doortaan. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan noo haysa. shuruucdan ay dhaqan gelisay dowladda waddanka Sweden oo dadka soo galootiga ah badankoodu ay u arkayaan kuwo culays ku ah kana hor imanaya dhaqanka, caadooyinka iyo meelaha qaar diintooda ayay ka mid yihiin inaan gabadh 18 jir ka yar la guursan karin amaba aanay waalidku guur ay ku heshiiyeen caruurtooda u qabanqaabin karin. Yaasiin Cabdilaahi Cabdi oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dalka Sweden ayaa iiga warramay faahfaahinta shuruucdaasi. Sharciyaas waxay hadda dhaqan galeen 1 bisha July 2020 waxaa ka mid ah kan koowaad dembiyada lagu ilaalinayo sharafka qoyska. dembiyadaas oo ay ka mid yihiin marka gabadhu reerka qoyska ka dhashay la doonayo in la xanibo ama xorriyadda laga qaado. marka sharafka xadidaadaasiti waa soo galaya. sidoo kaleeto waxaa xadidaadaasiti ku hoos lamaanan ragga dumarkooda dhibaateeya ama u diida xorriyadda inay sida isaga qofka xorriyaddaas ninku xorriyadda u leeyahay oo kaleeto ayay dumarkuna ay leeyihiin. ujeedada ka dambeysa waa intaas haddii ay ku cadaato iyadoo ay ku xiran tahay dembiga qofkaas uu sameeyey ama looga tuhmay heerka uu taagan yahay. waan gartay Yaasiin, waxaan u malaynayaa qodobkaasi inuu ku jiro xeer xataa Soomaalida qaban kara oo tusaale ahaan haddii qoys waddankii Soomaaliya ka yimid oo si uu ninku iyo gabadhiisu ay u wada dhaqmi jireen markay waddanka Sweden yimaadaan haddii ninkii uu gabadhii ku qasbaynay sidii u noolaato oo uu markaa ama gacan ula tago ama hatigaad kale ku sameeyo in xeerkaasi qabanayo. bal halkaasi noo faahfaahi hadduu ku dhex jiro xeerka qodobkaasi. isla qodobkaas hore aan u sheegay ayuu ku hoos jiraaye hadduu rabo qofka in uu haysto ama dib u soo celiyo arrimihii ahaa sharafkii qoyska. waxaa laga yaabaa reer qoysa halkan yimid oo dee dhaqankoodii wadankii kaleeto dhaqanka ku haysan jiray. soo halkan markii ay yimaadaan oo ay rabaan inay dib u soo celiyaan dhaqankii ay wadankii ay ka yimaadeen ay halkan kusii wataan. taas lafteedu waxa dembiga ah waxaa weeye ficilka qofka uu sameynayo iyo xanibaada uu qofku biniaadanka u xanibayo iyagoo ula jeeda qofka dee isagoo xor ah ayuu ilaahay abuuray. marka ama dumar ahow ama rag ahow qofna kuma xanibi karto. waa sida ay iyagu fasiraadooda ay ku balballaariyeen qoraalkii marka aan dib usii akhriyay. waan gartay Yaasiinow, marka maxay yihiin qodobada kale ee si toosa u taaban kara aad leedahay way saameynayaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Sweden? in caruurta loo guuriyo. waddankan Sweden waxaa horey uga jirtay in dhalinyarada ilaa iyo 17 jirka in haddii waalidiintood ay saxiixaan oo ay raalli uga noqdaan wiilka iyo gabadha inay isguursadaan xitaa dowladda sharci ahaan loo diiwaangeliyo oo laysku daro wiilka iyo gabadha. wixii waa laysagala soo tegay maadaama waddankan Sweden ay mamnuuc ka tahay. lacala haddii dadka ay kaxeeyaan oo ay qaadaan oo ay waddan kale geeyaan oo caruurtii lagu soo daro. marka tiiba iyaduna dembi laga dhigay in caruurta aad kaxayso dibadda aad geyso oo aad iyagoo teenage ah da-dii qaangaarka ahayd oo 18 sano ahayd aanan gaarin in aad u guuriso ayaa dembi laga dhigay. waxaa kaleeto dembi laga dhigay xitaa doonista. dad waxaa jira ilmaha intay gabar u doonaan ama gabadha intay wiil u doonaan oo muddo markay kasoo wareegta kadib xataa laysu guuriyo. soo tii doonista ahayd xataa waa la diiday. sharciyadanna waa sharciyada sida sharciyada wadanka loogu dhaqmo oo kale constitutionka wadanka ayay gelayaan ay ku jiraan.
sidoo kale waxaa la adkeeyey xukunka lagu fulinayo waalidiinta hablahooda guda kuwa dalka dibaddiisa u kaxeeya si ay u soo gudaan iyo xataa kuwa looga shakiyo inay falkaasi ku kacayaan. gudniinka fircooniga ah awalba weligiisba mamnuuc buu halkan ka ahaa, yacni xukunkii ayaa kor loo sii qaaday, sanadadiibaa kor loo sii qaaday. hadda waxaa la geeyey ugu badnaan ilaa iyo 10 sano in qofka lagu xukumo hadduu caruurtiisa uu gudo. waalidiinta laga hadlayaa. sidoo kaleeto maba la sugaya xataa inaad dembiga inaad samayso, xitaa haddii lagaaga tuhmo aad rabtid caruurtaada iyo adiga inaad safar aadaan oo lagu soo tiftifo ama lagu soo sheego oo maaragtay tuhun uu kusoo galo, waxaa dhici karta in madaarka ama aeroboortka lagu istaago. micnaha keligaa waad bixi kartaa, laakiin adigo caruurta wata in lagu diido. waxaana dhici karta micnaha caruurtaas mustaqbalka dhow xitaa in lagaala wareego. wadamo badan oo ku yaala khaliijka iyo bariga dhexe ayay qoysasku hablahooda dilaan amaba ay dhibaato u geystaan haddii ay ku kacaan ficilo ay qoyska intiisa kale u arkaan inay sharaftooda dhaawacayaan. waxaana marar badan ka hadlay hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa qaramada midoobay, waana arrinta dowladda Sweden ku dhiirigelisay inay soo saaraan sharciyadan adag. hase ahaatee dadweynaha muslimka ah oo diin ahaan aaminsan in dhallinyaradu 15 jir ku qaangaadho islamarkaana qoysasku talo iyo tabantaabo ay ku yeelan karaan guurka caruurtooda, ayay qodobadaasi qaarkood caqabad ula muuqdaan. inkastoo qodobka gudniinka fircooniga ah aanay jirin diin u doodaysa in hablaha dhaawacyadaasi loo geysto.